bandhiga ee Tusad Sports ayaa ciwaan u ahayd munaasabad lagu soo bandhigayo waxqabadkii qalabka isboortiga ay sameeyso shirkadda qalabka isboortiyada ee Tusad. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta dalka Cabdiqani Saciid Carab, xubnaha xiriirka kubadda cagta, gudoomiyaasha kooxaha ciyaartooy iyo marti sharaf kale ayaa ka soo qayb galay munaasabadda. Inta munaasabadda ay socotay ayaa waxaa shahaado sharaf lagu doorsiiyay qaar ka mid ah TV-yada ka howlgala dalka, gaar ahaan kuwa xiriirka dhow la leh shirkadda qalabka isboortiga ee Tusad. Intaas kadib ayaa lagu soo bandhigay qalabka isboortiga ay sameeyso shirkaddaas oo qayb ka ah fanaanado ay u sameysay qaar ka mid ah kooxaha dalka oo ay ka mid yihiin kooxda Elman, Dekedaha iyo weliba MCC. Qaar ka mid ah gudoomiyaasha kooxaha dalka ayaa u mahadceliyay shirkadda qalabka isboortiga ee Tusad House qaabkay u muujisay howlkarnimada iyo soo bandhigista qalab casri ah. quality Tusad Sports House أنا قررت أن أكون يكون يشتغل. وقدمت وحميمة إن أنت لقحص Tusad Sports House إن سيدنا أن نلقت شيء Somali Football Awards 2019. أول مرة سنة كنت عارف Somali أو كسالتون Tusad Sports أي مرتين شركة البحثي أول مرة تلسي ولا سنة يبقى كل قرحنا سنة فريق يقول هاي شكلها ثلاثة وأوشى كل هذه سنة الجولة سنة يقول سنة Tusad Sports House بيه هو ثلاثة على الأسبوع سوى ثلاثة أول مرة كل يكمل تلقتان إسلام سبورتس وتايرون حصل يعني كيف بعد سبورتس كان يوحنا هون لنا Tusad وصوب الكلام كنا نعبر في الوطن اليوم بعض الأيام وقت يا وقت نسيب كويا هذه MCC يعني كذا أنا كنا قلب أو في سنة كان إنسان Tusad Sports House سأنا وقف قادنا كان أرجعنا سأنا وقفنا سنة صوصرة هذا سنتين. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta dalka Cabdiqani Saciid Carab ayaa ku dhiirigeliyay ahmiyadda ay leedahay in shirkad isboorti oo soo saarto qalabka isboortiga dalka ay ka hirgasho, taasna ay tusaale u noqonayso in lagu dhiirado in qalab isboorti laga gado shirkaddaas. Wuxuuna shirkaddu ku ammaanay inay ka qayb qaadato horumarinta isboortiga. intaa kadib markaan u soo noqdo munaasabadan xiriirka kubadda cagta bandhigan qaybteeda lagu leeyahay qaybtan kulana bandhiga waxay tahay Tusad markaan aragnay inay dadaal ku jiraan marka ka dambaysa inay kor u qaadayaan tayada iyo tirada keenida qalabka isboortiga kala duwan, isla markaa ay raacayaan shirkadaha qalabka kale caalamiga sameeya qaabka ku sameeyaan. markii dambana ay isku dayeen inay sameystaan warshad u gaar ah oo ay qalab soo saaraan taasoo macno u sameynaysa in la aamino ayaga. waxaan arki jirnay gabdho qalab oo qalabka soo iibiya ay soo iibsadaan keenaan, laakiin waxay ka bedeli karin muuqaalka dharka iyo sayska dharka wata ka bedeli karin. laakiin ayagu ciyaartii waxay go'aansadeen in ay sameystaan warshad u gaar ah oo ay qalab ku sameeyaan. markii warshadda ay fadhiisiyeen xiriirka kubadda cagta wuxuu u furay fursad ah mar hadday warshad samaysteen in lagu aamini karo inay siiyaan qalab kooxaheen heerka qaran ee ciyaara horyaalada kala duwan. fursaddaas markii loo furay waxay caawa soo gaartay in la soo bandhigo dharka ay ku soo sameeyeen warshadooda. kadib xiriirka kubadda cagta waxaan amar ku siinay saaxiibadeen oon ku dhiiragelinay in ay kooxaha u soo jeestaan si loo qabaleen.
soo kontrolay waana loo keenay waxaan caawa rabaa inaan maqashiyo badan kubadda cagta halkan joogta halkan ay kooxaha la siinayo in aan saaxiibadan ku dhiirigelinay tayo wanaagsan markay keeneen haddana inay tusiyaan si free ah oo aan lacag lahayn markay munaasabada soo gabagabowda kadib ayaa Tusma TV weydiisay ujeedka iyo waxa loo qabto munaasabadan gudoomiyaha shirkadda qalabka isboortiga ee Tusad Sports House. Santahay markii ugu horeysay maahan sanad walba mar sidaan oo kale loo qaban jiray laakiin tan waxay uga duuneed si official ah in maaragtay dadyo badan oo ay ugu waaweyn yihiin xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed media lagu yeero iyo maaragtay madax sharaf kale oo tiro badan marka tan xoogaa official ayeed waxyaabaha officialka ka dhigayeen waxa qayb ka ahaa sida boorka oo kaaga muuqda bandhig waay waxa la soo bandhigay qalabka meesha lagu soo bandhigay waxa lagu soo bandhigay dharka banooniyada kabaha marka taasa waxay xoogaa kor u qaadaysay in la tusaaleeyo wixii dadka la tuso especially naadiyada MCC naadiga weyn faca weyn ee dekadaha naadiga aad ku qiimaha badan Elman naadiyadaas waa weyn oo aan siinay qalab tijaabo ah oo aad loogu riyaaqay oo la soo tastigaray oo xiriir kubadda cagta ay soo arkeen oo maaragtay naadiyadan ay aad u jeclaysteen oo design ahaa their own design macnaha unique design ayaga ay leeyihiin ahaa sida aad ogtahay naadiyada Manchester United sida ay design gooni u leedahay waxa fahmi kartaa wiilka Japan joogo markii uu naadiga Manchester United fanaanadeeda wato ama Korea joogo well known way waxa la leeyahay fanaanada Manchester United wata sidaas oo kale waxaan ka shaqeynaynay wiilka fanaanada taageeraha naadiga dekada u ah ama MCC ama Elman u ah hadii uu Mareykan joogo Minnesota gobolka Soomaaliyeed badan yihiin iyo hadii uu London joogo inay dadka garan karaan inuu wato fanaanadii Real Madrid.